imagine konton kun qof wuxuu ka soo deensaday adiga waxa rabtaa inaad heer ku gaartid wax aragsan mee ku biirtay meeysa ku biirin sababta ay ugu biiri weysay wajigiisa oo maxaa la dhihi jiray qaleelka ah ayuu saacideynaya ani ka aragsan ahaan horta maanta waxa rabaa inaan cadeeyo inaad diiday mar hore waan diiday ilaa hadda waan diidanahay imagine konton kun qof wuxuu ka soo deensaday adiga waxa rabtaa inaad heer ku gaartid wax ku gaartid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أدعمنا ورزقنا ونعمنا وفضلنا مما خلقته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halka aad iga daawaneysaan ama aad igala socotaan ama aad iga jeedaan waa aragsan bila beauty channel ku soo dhawaada asxaabteeda caashiqa daafaha caalamka meel walba ka joogtaan maantay walaashin aragsan bila maxay idin wadaa ma sha Allah YouTube ka si tartiib ma sha Allah ugu soo noqonaya ayaamahan aan idinka maqnaana ma ahan inaan idin kala maqnaa xumaan iyo dhibaato khayr baa idin kala maqnaa iyo anigu adinka markasta ka fakarayo waxa asxaabteeda danahooda iyo arimahooda iyo horumarkeena dhamaan inta wax ku saabsan marka maantay walaashin aragsan bila maxay idin wadaa sadar buu su'aal ka dhanaa lahay asxaabteeda caashiqa sida u jeedaan dhinacyada product ay iga yaalo maanta productiga aragsan bila idiima wado because waa ka dhantihiin waa taqaaniin wax cusub hada idin keenana ma sha Allah tabarakallah waad la socotiin waxyaabo far badan marka waxa jirta ayaamahan igu soo noqdo su'aalo far badan si live ah WhatsApp ka meel walba taliga soo weydiiyo sababtoo ah waxa la biika badan way ku qaadaan marka meel aad ku dhex jirtid environmentiga saameyn ayuu kugu yeelanaya sida u jeedin marka alaabahan ayaa rabaa maanta bal kelmadeeda inaan ka dhaho iyo aniga aragtideeda aragsan mee ku biirtay meeysa ku biirin sababta ay ugu biiri weysay hada ku biiranay sababta ugu biiray iyo bal maanta waxa ugu talagalay company-gan forever productigiisa inaan ka iraahdo maraba ina wax badan ku fogaado sida u jeedaan wuxuu haystaa company-ga wuxuu haystaa alaabo kala duwan oo haystaa productiga kala duwan ayuu soo saaraa company-ga anaga hadeertaan Soomaali ahaan ama asxaabta isli businesski ganacsiga ku leh waxay nala tahay hadda 2020 ina ku baraarugnay coronavirus xoogaa iskaga dhaqaynay xoogaa maxaa la dhihi jiray brain wash jirto waxa la dhahay xoogaa inta guriga la dhex fadhiyo maxaa la dhihi jiray ma aqaan ma gabdhihi YouTube-ka gagaleen ma ogi soo arkeen productiga company-gan sida la sheego ama asaga uu sheegto ama dadka ka shaqeeya ay sheegaan ama ka u shaqeeyo 100 sano ku dhawaad waa company soo jiray dhowr 60 sano hortan soo jiray Kenya 10 sano ku dhawaad hadda ka shaqeynaayo company asagoo kale ah way jiraan magacyada uu loo kala gagadiyo laakiin productiyada waa dameer iyo labadiisa dhagood marka aniga maanta ka aragsan ahaan uma imaanin hadda ina idin sharxo hadda kan oo kale waxa lahaa dadka qoraxda ayuu maxal jiray oo ka difaacaya qofka guduudka haduu qaban oo ka saacideynaya kanoo kale dadka qaar xataa productiga iska gado ayagoo aqoon u lahayn aad uga xumahay kanoo kale hada xal lahaa qofka oo wajigiisa oo maxal jiray qaleelka ah ayuu saacideynaya kanoo kale toole qofka wajigiisa face wash maxal jiray scrub waaye qofka wajiga daldaloolka ku qale oo oil face-ka ah loogu talagalay inuu isticmaalo tani waa Colgate loogu talagalay in la isticmaalo company-ga productigiisu badan yahay dhanka slimming ama maxal jiray miisaan iska dhimida uu leeyahay waxyaabo far badan uu soo saara aniga marka inta waxa taalo lipstick-giisa ii taalo waxaan dhan hada u jeedaan aan dukaankayga ku iibiya waa gada marka ka aragsan ahaan maantay waxa rabaa sababtoo ah dad badan su'aalo iga badiyay ina company-ga ku soo biiro ani ka aragsan ahaan horta maanta waxa rabaa inaan cadeeyo inaad diiday inaad total company-gaas ku soo biiro forever reason-ka aad u diiday marka ayaa rabaa haddana asxaabteyda inaan ka qanciyo sababtoo ah qof kasta heblaayo waa ku biirtay hebel wuu ku biiray heblaayo waa ku biirtay leela maqlo laakiin aniga waxa ahay qofta diiday inaan ku biiro company-ga sababtoo ah waxaan marka wax sameynayso meesha waa maal gashanaysa waxa aad maal gashanayso you have to know miraha ka soo baxay waxa ay yihiin iyo mira la guran karo ilaa intee in la eg manaafacaad intee la eg yihiin ay leeyihiin sida aad ognahay company-gan alaabtiisa markii la isticmaalayo hada aniga sheegan bahalkan waa 1000 shilin la gadaa iska dhaaf dadka qaar xataa 1500 ka Kenya shilin hada tan oo kale toole 2000 la gadaa Kenya shilin ama 2000 shilin okay waa lacag $20 u dhiganto producti kaligiisa sidaas qaali u ah
qofka marka uu rabo inuu kambaniga ku biirane waxa shuruud koowaad ah qofka inuu asaga iskeeno waxa lagu leeyahay si af Soomaaliya adiga wax badan lagaaga dhaadhacsiina sababtoo ah qofka asaga waa looga soo dhaadhacsiyay meeshan waa la soo geliyay qofka wuxuu u baahan yahay marka wax uu kala soo dhexbaxo ama wixii asaga meesha ka galay ila haduu ka heli waayay hadii kala tawa wuxuu u baahan yahay si uu kala soo baxo aniga marka ka aragsan ahaan waxa ka aaminsanahay barodhagtiga waxa ka arkay iyo sababta u gali waayay ayaan jeclaystay asxaabteeda daafaca caalamka meel walba ay joogtaan ku nool ina idin la sheer gareeyo waxay tahay marka sababta barodhagtiga ko waxa markaad waxa maal gashanayso warta ina fiirisa ani horta forever dadka 2020 haduu hadda ugu horeeyo ani hadda igu ma horeen 2017 waa arkay 2015 waa arkay 14 waa arkay company kala magac duwan waa arkay barodhagtiga sidaan oo kale ah waa arkay soo marka waxay tahay company-ga dadka maanta inay indhaha intay soo kala qaadaan oo wax hadda cirka ka soo dhacay ma ahan company-ga waa company waa jiri jiray ayagoo kala jiri jireen kuwa qaar fashilmeen kuwa qaar iska baxeen kuwa qaar dadkii lacagaha iyo wixii intay ka arursadeen iska kala tageen waxay tahay waxaaneeto program waay programkan waqtiga loogu talgal inuu socdo looga faa'iideysto dan wuu baxaya marka aniga asxaabta ama shacabka ama janaalkayga inta ku xiran waxa jeclaystay wixii waxa naftaada la jeceshahay وانا walaalkan aan la jeclaata marka aniga waxa jeclaystay sababta aan u galin ina idin la sheer gareeyo hada ku qanacdaan waa kaasa hada ku qancina kulli ani waa idin sheeg oo hada leema dhihayo sababta ah dadka luuqa qof walba kama qancin karo marka waxay tahay hada ka soo qaad marka oo kale toole qofa wuxuu qabaaya lahay guduud u leeyahay aniga marka waxaan dhahay barnaamijkan miyaha qofa soo qaato qofka soo qaato ani ka sii gataa marka ka sii gato lacagta aan ku gatay customer-kayga uga gadaa si aan u qanciyo oo alaabtaas inaan haynin un ii arkin okay aniga sababta faa'iido kama raadiyo hada ani 1800 ku qaato 1800 shilin asxaabteeda uga gadaa ama customer-kayga dukaankayga ku xiran ani ayagu ku qancinaay dartooda laakiin aniga waa gali karay inuu intuu qof kale iga faa'iidayo aniga nafteyda sida dadka looga dhaadhacsiyo inta la iga dhaadhacsiyay company-ga ina tago konton kun oo keenshina waa $500 $500 horta qof dadka qaar way la fududahay dadka qaarna way la culustahay laakiin ilaahay oo rabbi raxmaan ma 5 shilin ahaat haday lacagta jeebkaada ka bixeyso waxay ku tahay waa inay qiimo kugu fadhisaa konton kun oo aan dhahay marka waxaan gelinayaa alaaba gelinayaa alaabtaaseeto waxay tahay wax alaab wax tar leh before marka aniga waxa ku qasbanahay ina company-ga hal xab wax uga gato gabdhiha waxa sameeyay hal uga gatay waxa la dhahay alaabta mid haarta bixisaa mid guduud ku bixiyaa mid nabraha bixisaa mid saane bixisaa okay saas miyaha waa gatay aniga waxa ka isticmaali karo waa ka isticmaalay asxaabta qaar oo baahiyahaas la sheegay qabto waa ku tijaabiyay marka si intaana lacagteedu weyneed aan meesh iska gelinin bointigeyga waxa jecelahay insha Allah taala ina ila fahmeysaan sidaas marka ay tahay asxaabti waxa soo baxday qofka haar qabay haarta waxba qofkii kama bedeleyso haarta qofka waxba kama bedeleyso qofkii nabar qabay ama guduud qabay company-ga wixiisa haduu isticmaalo qofkii wixii wax ma ka bedelaay lacagta lagu gatay lacag yar ma aha 200 shilin ma aha oo almost ku dhawaad 200 shilin lagu gatay halka shay oo company-ga kamid ah okay marka alaabta marka sidaas ay tahay aniga anoo ku qancinayo oo aniga waxa faa'iido igu jirina dadka ka qaata dukaankan waa ku sii gadaa macnaha sidaas darteed marka aniga waxa diiday ka aragsan ahaan dadka dariskayga business inta igu la jirto inta hadda forever wada qaadato waa la ogyahay oo YouTube lay ah marka ani waxa arkay systemka lagu shaqeynayo uu kala duwan yahay marka aniga qofka hadda business lay ah uma naxaayo laakiin waxa u naxaaya waxay tahay hooyo ama gabar ama walaal Soomaaliyeed oo guriga iska joogay oo shaqo heynin oo $500 konton kun lacag shilin ah rafaad iyo dib ku soo raadiyay la dhahay adoo gurigaada joogtida shaqaysanee alaabtaaneeto waxbay ku tarayaan alaabta marka adiga si dad badan horta lagu shaqeysana qofkaaneed kugu shaqeysanayo ee horta company-ga forever cid iska leh ana kan ugu shaqeysanayo si dad badan ugu shaqeysanayo macnaha adiga waxa laga rabaa lacagtaadiya wixii gelisay ma aha waxa lagu leeyahay alaabtini alaabna waa hele lacagtini waa gelisay alaabtini waa gadane adigana waa isticmaalay okay aniga alaabtan ina isticmaalo baahiba iima hayso Colgate suuq u yaala meel kasta tuu yaala isticmaali kara kuwa jackal ka sameeyay everything kuwa healthy ah oo caalamka oo dhan ay ka wisanayn ina Colgate kan 1500 kushin ka bixiyo waxa baahay ani gooni ah uma qabo dadka hadii xataa cirid dhiig iyo wax ay qabaan wax uu Colgate kale ka duwan yahay ma arkin soo marka aniga maxay tahay sababta uu isticmaal alaabta qofku waxa laga dhaadhacsiina adiga naftaada baahida ku heysayna uu ka daboolaya
waxaa sameyn kartaa dariskaada oo kala baahan oo dhib u qabo oo wajiga ka halaysan yahay oo kan ka halaysan yahay waa ka gadaysaa okay waxaa lagu leeyahay halkaas alaabta waa ka faa'iiday midda labaad hadana waxaa lagu leeyahay more qof keentid the more sii faa'iidid waay okay adiga almost konton kuna ka baxday alaabtii soo qaadatay hal bokis soo qaadatay waxa aragtida soo qaadatay waxa ku taran ama ku tarin dukaan ma lihid meel alaabta ku gadatid ma taqaanid labada qof aad taqaanay ayaga laftirkoodii martid in alaabta ka gadidee waxa rabtaa inay soo galaan kambaniga oo ka kun ay keenaan waa lagu qasbay xataa markaas rafaad waxa ka mareysa maanta dhan rafaad u maree sida qof kale ku soo galin lahayd sababtoo lacagtaadi si kale kugu soo noqon karto waxay kugu soo noqon kartaa qofka dambe inaad keentid 10 qof hadaad taqaan waa inaad keentaa meeqa qof ka yeelaysa marka lacagta 10 kun oo shilin xataa ma 5 kun oo shilin xataa ma waa 50 kun oo shilin waa $1 kala barkeeda waa $500 waa okay saas marka ay tahay oo lacagta alaabtii la geliyo dadkii amaanta saaxiibada adiga waa isku nicaysan qofku waa ku dhibsanaya maanta in kambaniga sharxaysa qofkan u xiiqayso oo u xabeebayso alaabtan xataa hadii aniga wax ay ii tari lahayd waxba dhib kuma qabeen 50 kun ka badan way u qalanta laakiin ani ahaan marka aragsan ahaan alaabtan waxa u gali waayay waxay tahay alaabta ina arkay sida la rabay ama sida loo sheegayo oo qofku wax looga dhaadhacsiinayo ama kambaniga laftirkiisa asaga madow ay cid doontaa u shaqeysay oo Soomaali ahayn sida ay wax u sharxayaan alaabta inay sidaas wax ay u sharxayaan alaabta ay ahayn oo quality-ga heerkaas gaarsiisan waa wax 100% iska natural lagu dhahay wax marka 100% natural oo iska caadi just adiga boo iska dareemi kartaa kareemka markuu natural yahay jirkaada sidaada loo ahaana waxba kama bedelayo marka qof wax akhristo tahay waa ina meesha wax aad fahanto oo la iska galaayo ma fahantay soo marka waxay tahay 100% waxa natural waa markii lagu dhaho maanta saabuunta natural waa markii lagu dhaho nabarna kaama qaadi karto guduud kaama qaadi karto sababtoo waxaas daaweeyay kama sameysno marka productiga maasha Allah wixiisa 100% natural waa sida ahayd umbaad ahaanaysa waxba kugu soo kordhinaa hada cayilneed xataa ilaahay oo 5 kiilo ay ahaato kaama jaray sida xaqiiqda qofka uu ka jaro waa qof dadaalay oo niyeysto in malacbaal midiyad qofka horta dooniyeysto waa laga yaabaa inuu sameeyo laakiin kambaniga ilaa hadda qof intuu isticmaalay oo 100% oo wax u qabtay ilaa hadda ka aragsan ahaan inta suuq ku jiray iyo ka hor iyo inta arki jiraba horta ani ma arkin waxa markii idin sheegaa waxay tahay kambanigan walaalaha masaakiinta oo guryaha iska joogo oo shaqada haysanin oo lacagta sida dhibka ku keenay ilaahay ha laga cabsado lacagahooda yaa laga barakicinin yaa biilashi dhuunta loo istaagin يا قفك أنا هذا وحقنا ضد بدن أو نيروبي كجورين أو كقحين أو كتجان لأجل أو كتجان وحال هاي سو أرضي كان بنيج أوكي كان بنيج قفكم كسوق لنا أسوق كفا إذا وحتى the more وأديكوا كانوا كان بنيج حوجات ترتيب على عقد وصون قناة أوكي the more قف كان هذا مركو حياته هاي أنا هذا ما أنت مج عليها عانا هاي كسوقات whatever هذا وأوقف فائدة سكرة كمبنيك وافع عنها سو أرضي وواحد إيه كرا طبعا قف هذا كان أنا فائدة أول مستوى يسون قطة the more أو أنا أحد ندت سي كانوا وحي حدنا محل يجري ويسيس عنا يعني أو أنا فائدة ويسيس عنا لكن أنا أينيو أنا مح بلشد عن أوجن قضي أنا دبعتي مع عن أوجن قضي بس أنا واحد كود كشقيا واحد قضي قف كامرك ولا لك درتيسة أو أنا مجا يقول آمني محاك قيانا يعني محا أنا جربا أنا أسجد درتيسة إلى عقد مسكين تاسيت تبيلك يقول قاعدتي gurigeed inta uga soo bixiyo kambaniga inta aniga ku heer idarajooyin ku gaaraya marka ani waxa u arkaa waxa soo dhan dadka walaalaha in ilaahay dartiis loo istaago barnaamijka hada si kasteeta aad magac u leedahay hada si kasteeta wax u tahay qofka waxa wax ku tahay bulshadaada waxa haday saameyn ku leedahay waa ina u sheegtaa haday wax tar u leedahay waa ina u sheegtaa laakiin ma aniga maanta caana ahay magacayga uga faa'iideysanaya 100 qof ay ugu soo raacaysa then lacagta saasa uga soo adiga yaas waa faa'iiday laakiin qofkan walaalka oo gabadhan guriga joogtay ama ninkan guriga iska jooga ama hoola kala heesanin ama business waxba ka aqoonin Colgate-kan intuu geenaya iyo u geenaya cid u geenay malaha lacag ugu fadhiya qiimo ugu fadhiya wuxuu ku sameeyay malaha adiga dukaana heysata yaas dukaankaadi wax ku gadaysa qofkii marka wajaha bareeraya markaas dadka qaar waxa lagu qancinaa aniga dukaankayga keenso ana ku gadgaday qofkii alaabtiisa maanta dhan kama daba hari karo labadiina waa isnacaysiin ma fahantay alaabta qofku wuxuu arkaa culays ku soo zaa'id inay tahay haduu qof ku qanciyo qof labaad kuma qancin karo inuu kambaniga soo geliyo how ka marka lacagta aniga qofkii lacagtiisa ay ugu soo noqon kartaa marka walaalayaal waxay tahay waxaan fiiri wax dambeeyana fiiri marka wax galaysiin hololololob ha iska galina waxa waa ina u fiirsataan before xataa qof kasta oo konton kun dhiibay
laba kun oo shilin waxa waxaan qaraar calug uma dhutay 2 kun oo shilin uma dhutinaysid hal shay soo gado baahida ku hayso ku tijaabi haduu waxaas wax ku taro yes barnaamijka gal laakiin adigoo saameen inta wax laga dhaadhacsiyo kana ku taajire qofkan aa u jeedid inuu lacagta shaqeeyay magaciisa ku shaqeeyay magaciisa lacagtan ku helay laakiin ma ahan inuu barnaamijkan waxtarkiisa wax ku helo ma ahan laakiin magaciisa le aa u keenay inuu waxaas helato soo marka adiga qofkan oo kale ma gaarsiisnid magacaas oo kale ma lihid dukaan business ma haysatid business waxa uu u baahan yahay laftirkiisa experience iyo khibrad u baahan yahay khibradii ma haysatid wixii aad ku gadid ma haysatid dulqaad business u baahan yahay wuxuu u baahan yahay xirfad u baahan yahay furfurnaansho u baahan yahay bulsho inaad dhex gashido u baahan yahay waqti u baahan yahay kalsooni u baahan yahay wixii oo dhan marka adoo haysanin waxa noqotay qof si qasab ah inta guriga loogu imaaday si qasab ah lacagta looga qaaday si qasab ah company lagu soo galiyay then wixii ma ku sii socon karaan joyskaada awalka hore taw ma ahan waxa lagaaga dhigay wax si fudud jaranjarta inta lagu koray $100,000 lagu soo shaqeey maya hebel lacagtan qaatay aa u jeedid wuxuu ku qaatay just magacaada leewa horumarka uu adiga ka gaaray dartiisa leewa laakiin ma ahan waxtarka company-gan asaga intuu sheegay isticmaalay uu wax ku qabtay uu wax u taray ma ahan marka ani company-ganeeto mar hore waan diiday ilaa hadeerta waan diidanahay diiniyan waxay diinta ka qabto kaas sida company-da kale oo tensiga iyo kala mid yahay waxba aan taas igama galin laakiin ka aniga ka business ahaan iyo ka hooyo ahaan ayaa bulshada Soomaaliyeed ula hadlaya ka business ahaan marka aan fiiriyo aniga dukaankayga aragsan bil had inta ku xiran maanta productigayga waa la yaqaana macnaha productiga aniga marka soo saaraay ama maanta suuqa aad tagaayo qofkan asaga muxuu rabaa aniga wax ugu ma keen laakiin aniga wixii is dhaho qofka hebel ah asagoo dhibaataysan dad ku imaado dhibaatadaas maxaa ka xalin karo ayaa wax ugu keena marka taas waxay tahay ina aniga business ahaan marka waxay tahay waxaan waxtar ma u leeyihiin bulshada aniga u taaganahay oo aan dukaanka u furay oo aan suuqa u joogo oo aan maanta dartooda wax ku ahay haduu qofkan waxba u tareenin aniga waxba iimahan marka ani barnaamijka forever waxa uu arkaa just wax iska natural ah way company-ga wixiisa wax 100% natural ah way ayaga dhaheen xataa ku soo qoreen wax natural ahna qofku waxba kama bedelo dhibaato haysatana kama qaado dhibaato haysatana kuma soo zaaidiyo hada kareemkan iska marsada maanta oo dhan waxba iima soo zaa'idinay ani nabarna igama soo bixinay nabarna igama baabi'inay marka waxay tahay inaan kala fahno waxaan natural inay iska yihiin in just marka maxaa la dhihi jiray magac iyo waxaas qofku uga faa'iideysanaya ma ahane si kale income looga keeni karin ma fahantay soo marka anigana diyaar uma ihi asxaab badan oo maasha Allah inta uga mahad celinaya oo idhaahda aragsanay soo gal aragsanaysan waa uga faa'iideysan kartaa YouTube-ka waa soo dhigi kartaa kan waa yeeli kartaa laakiin ani waxa wax kasta iiga muhiimsan waxay tahay bulshada iyo asxaabta iyo walaalaha aaminsan magacayga aaminsan wax waxtar leh ina u keenaan marka maadaama aan ogahay aniga sheeganeeto nafteeda waxtar weyn inuu u lahayn uma arka walaalahin inay waxtar weyn u lahayn hadalkayga hadal badan haan ma buuxshaa la dhahay waxay tahay marka digniintaas yariista ah waxa marka adigu ku baraarugsan tahay waa ina walaalahan ku baraarujisaa marka waxay tahay walaalaha masaakiinta ah guryahooda iska joogo yaa la soo barakicinin yaa la dhihin barnaamijkan wuxuu taraaya ilaahay ha looga cabsado walaalihiin u naxariista dad badan oo cawanaya jiro oo productiga meelay geeyaan la dadna meelay ka keenaan la productiga meelay geeyaan ilaahiin dadna meelay ka keenaan ilaahiin wax ilaa had u tarayna way ilaahiin ma baahantay dada ilaa Soomaali ilaa xamar ku noqdo ilaa goboladooda iskaga noqdo sababtoo ah kontonka kun uu ku galay xataa qof uu ka soo deensaday imagine konton kun qof wuxuu ka soo deensaday adiga waxa rabtaa ina heer ku gaartid wax ku gaartid ilaa intee marka waxaas aad ka ceesh kartaa marka waxa leeyahay asxaab hal isku dhimriyo qofka uu ka sareeyo ha u dhimriyo waxaan business-kana wixii ku inuu xalaal ku yahay fiican marka ani barnaamijka asagoo okay ah lipstick aan waa gada lipstick-yada kale to wax had waxtar leh oo ugu yaraan isdhig karo dadka faruuryaha qaleelka qabo ee ka saacideynaysa ama jacjac ka qabo then waxa kaliya company-ga hadda ka arka wax yar la inay ka shaqeynayaan kana ka jirto lipstick and then lipstick laftirkeedana hal mar xataa qofka haduu problem qabay kama saacideynaa inuu ka dhaafo waa inuu markasteeta wata waa inuu markasteeta heesta soo marka waxay tahay ma jirto company-ga inaa hal shay inta isticmaashay oo wixii wax ku taray ma jirto laakiin waxaan kale toole oo dhan kareemyada caadiga ah ay maxal dhijir lamid yihiin asxaabteeda caashaqa daafaca caalamka meel walba ka joogtaan waxa idin leeyahay company-ga forever aniga ka aragsan ahaan diyaar uma ihi inaad galo sababtoo ah barnaamijka la wado aniga oo na rabin macnaha ina qof ku soo qasbo walaalkay ah ama lacag xoog iyo qasab ah uga soo qaado oo si macnaha qofka markii la sisirasho iyo sabashada qasabka wax ma dhaanto qofka waa la sisiraa waa la sasaba ina la waco in group loo sameeyo in kan laga dhaco in kidil dhaho lacag yaraa inta lagu indha daraan daryaa lee hebel intaas ku gaar hebel
lacagtan wuxuu ku gaaray dartaa iyo adiga intuu kusoo siray uu ku qayaanay aan taaganahay ma fahantay because aan youtube kan anaas kale cid ka cabsanayo malahan alxamdulillaah rabbil caalamiin qof ula jeeda hawa yaraatee heblaayo iyo hebelna ma jirto boqol qof ani way ii imaatay way isku dayda inay dhahdo aragsan soo gal reasonka u gali waayo waxay tahay waa tijaabiye productiga waxna wuu ii tari waayo so aniga marka inaan ka hadla xaqiiqda adiga buu soo fadhiisatay waxa tirkan wuxuu taraa soo galaa tiri adiga qof ka naxda ma jirto aniga laakiin dadkayga u naxaya asxaabteeda u naxaya nafteeda u naxaya walaalahayga u naxaya kambanigan yaa la ku sirin wax tarmaha dagooni uu leeyahay ma jirto adinka waa ogtihiin dhibaatada iyo waxa kala kulmanteen marka waa kaasa soo dhawaada barnaamijyo anaga kasii quruxsan aan productiyadan aan mideeda kala ka aragsan ahaan waxa aaminsanahay maanta biidnillah kariim product sidaan ka tayo fiican oo qofka haduu sidaas wax yar oo dhibaato meel ay ka haysato intuu iskugu habeeyo ee ka baabi'inays in aan soo saaran karo oo sida aan la igu shaqeey karo how kama aniga nin cadaan ah nin Chinese ah nin Asian ka imaada nin intaas oo qaaradood ii soo maray aniga iga faa'iideysana waa nothing by the way so marka ku kalsoono naftaada waxaan oo dadka ay sheegayaan ka badan adaa qabsan karto anaga qabsan karna gacmaha is qabsano barnaamijkana intaas ku soo gabagabeynaa productiga waa u jeedin waa idii haya cid rabta inay lacagteeda ku gubto waxa waaye way gala kartaa ma fahantaa waan ku biiri kartaan soo dhawaada wixii like iyo share iyo subscribe ahna waa xaqiina asxaabteeda caashiqa aad baa u mahadsantihiin daafa caalamka meel walba ka joogtaan sida quruxda badan aad muuqaalkayga ula socoteen bye bye